isu soo bax ballaaran oo ka dhacay magaalada Buuhoodle isu soo baxan ay soo qaban qaabiyeen haweenka ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo sidoo kale ardayda ayaa lagaga soo horjeeday kufsigii iyo dilkii loo geystay Allah ha u naxariistee Caashe Ilyas Aadan ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay qaar kamid ah haweenkii soo qaban qaabiyay banaanbaxan ayagoona baaq u diray maamulka Puntland in ay cadaalad hor keenaan dadkii kufsiga iyo dilka u geystay Allah ha u naxariistee Caashe Ilyas Aadan hadayna maanta arrinka taaganaynaan ku dhigin waxa dhici doonta inay gobolka ka bilaabato ay noqoto wax iska caadiya oo qofna ka jawaabin ama ka falcelin sanad ka qaado banaanbaxyada dalkeena Soomaaliyeed aynu ka bilaawno aynu tusno dadkii falkaas geystay inaan arrinkoodii ka soo horjeedno ay sharaf dhaca ama tacadiga ay kula kacayaan walaashooda hooyadooda habaryartood inay ka qaataan fadlan haddii damiirkaagu nool yahay كمان عبد الصح بدرس باقية وما كعبين ليرادة ترتيبي على الحمدة لأنك السكر والصح وحكى الراعة كردها الصوماليات تلقى السوداء ورايا أفضل أمر من سنة المهير إصديرك الأمر يالله كسكودي هاي بأن هم قارن وهم بور قارن وسكان سقارن وحلوه وروحا لقى صوماليات بلقى دولة إلى الكتلوان waxay ahayd iska dhalinyaro oo iska reer miyiga islaantaas waxay ka timaaday xagga reer miyiga ka timiyada xaabahoota waxay istaagay dhowr kule oo waxay istaagay kubadda ka yimi in islaanta ahadu ama wax ku sameeyo ama kufsadaan islaantii markay qabsadeen ayaa mid kamid ah waxa ku jiray wiil kamid ah ay dhashay markii islaantii gartay muxuu sameeyay hooyadii inuu kufsadeen wiilashana waxay soo tageen inay islaanta kufsadaan laakiin waxay dhashay mid kamid ah sidaa darteed walaasha wada ogtahay waa walaasha gurigeena joogta tanad kufsanaysa waa walaasha oo kale kufsiga waan gaynaa dumar baan nahay laakiin sida naloo galay ama inanta 12 jirka loo galay si islaamnimada ku jirta maaha dawladdaas waxaan ka codsanaynaa ee Puntland gaar ahaan uu ka yahay madaxweynaha Dani inay cadaalad hor keenaan Galmudug Caashe Ilyas waxaan leeyahay waad siqiirtay adduunka adiga raaxay ku hureen nimankaasi laakiin dawladaha waxaan ka codsanaynaa inay nimanka hor keenaan cadaaladda maadaama in cadaaladda hor keenin ogaada siqiir kabiir nin kasta oo kacay uu ku kacayaa dhaqanka iyo dhaqan xunba marka dawladaha waxaan ka codsanaynaa inay noo soo qabtaan nimanka kaga qaylisay waxaan aad uga xunnahay dhibaatada iyo tacadiga loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed ama haweenka Soomaaliyeed haday tahay hooyo wax dhashay haday tahay gabadh haday tahay mid weyn waxaan ka codsanaynaa dhammaan in ay dhibaatada loo geysanayo cid kasta oo islaamka sheegata ama Soomaaliya ama dawladda ama waxgarada ama aqoonyahanada inay dhibaatada loo geysanayo haweenka Soomaaliyeed inay ka dhiidhiyaan oo ka kacaan عودي النعم باكوري عشان تصل بيجي لهاي عشان تمدي لهاي عشان توصلي لهاي على ودين كميو عوان مع الساكوري عشان عدو باكوري على ودين كميو عوان مع الساكوري محمد علي بلاد بوهودله